bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn warka xogta TV waxaana kamid ah madaxii canshuuraha ee al-shabaab iyo ilaaladiisa oo lagu qabtay dagaal ka dhacay degmada Janaale xog laga helay cidii ka dambeysay inay burburiso kaamirooyinkii ku xirnaa Maka al-Mukarrama madaxweynaha Puntland Deni oo aqbalay inuu yimaado Muqdisho kadib cadaadis uu kala kulmay xildhibaanada ku matala Puntland dowladda federaalka xildhibaanada cusub ee koonfur galbeed iyo beelahay ka soo jeedaan oo la shaaciyay diyaarad ka timid imaaraadka oo laga celiyay Hargeysa iyo go'aankii dowladda federaalka oo dhaqan galay shirkadda Ethiopian Airlines oo qaaday tallaabo ka dhan ah madaxbanaanida Soomaaliya haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino taariikhdu waxay tahay 19ka bisha 3 Maarso sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowno Shabeellaha Hoose madaxii canshuuraha dagaalamayaasha al-shabaab iyo ilaaladiisa ayaa Janaale lagu qabtay war ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka ayaa lagu sheegay in howlgallada ciidamada dawladdu ka sameeyeen gudaha iyo daafaha deegaanka Janaale ay ku soo qabteen sargaal ka tirsan al-shabaab iyo dagaalamayaal watay sargaalka shabaabka ay ciidamadu ay soo qabteen ayaa magaciisa lagu sheegay Maxamuud Yuusuf Mansuur wuxuuna al-shabaab u qaabilsanaa ururinta canshuuraha gaar ahaan sakawaadka sida lagu sheegay warkan oo ay heshay idaacadda codka ciidamada qalabka sida Soomaaliya sidoo kale sargaalkan ayaa la qabtay 7 ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo la socday waxaana la sheegay in haatan ay ku socdaan baaritaano ay ku wadaan ciidamada militariga Soomaaliya oo maalmo ka hor al-shabaab kala wareegay gacan ku haynta deegaanka Janaale taliyaha ciidanka dhulka ee militariga Soomaaliya Sariya Guuti Cabdixamiid Maxamed Dirir oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay Janaale iyo deegaanada hoostaga ka wadaan howlgallo ay ku xaqiijinayaan ammaanka taliyaha ayaa sheegay in ilaa hadda howlgalladaasi lagu soo qabtay sargaalkaas iyo dagaalamayaasha kale wuxuuna sheegay in ninkan uu ahaa madaxiisa kawaadka al-shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa al-shabaab maalmo ka hor kala wareegay deegaanka Janaale oo ay maamulayeen in ka badan 10 sano waxaana xusid mudan in maalmihii u dambeeyay ee al-shabaab ay maamulayeen deegaanka Janaale oo martigeliyay duqeymo ay ka fulinayeen diyaaradaha Mareykanka markaana Hargeysa diyaarad ka timid imaaraadka carabta ayaa laga celiyay garoonka Hargeysa waxaana arinta ka dambeeyay sida la sheegay dowladda federaalka diyaarad rakaab ah oo ka timid dalka isu taga imaaraadka carabta ayaa lagu soo waramayaa in maanta loo diiday inay ka degto garoonka diyaaradaha Cigaal International magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland wararka ayaa sheegay in diyaaradda oo ay lahayd shirkadda Abu Dhabi ay dib ugu laabatay dalka imaaraadka carabta iyadoo aan dejin rakaabka haysiday sidii ogaatay warbaahinta hay'adda duulista rayidka hawada ee dowladda Soomaaliya ayaa duuliyaashan ku wargelisay in diyaaradoodu aysan ka degi karin magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland iyadoo la fulinayo markii ra'iisul wasaaraha ay ka hortaga corona arrintan ayaa sidoo kale ku soo aadaysa iyadoo maanta uu dhaqan galay go'aanka ay dowladda federaalka ku hakisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ee Soomaaliya sidoo kale wararka ayaa sheegay in ilaa haatan aysan wax diyaaradaha ka soo degin garoonka aadan caday kadib go'aankii dowladda federaalka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa isniinta shaacisay in xanibaadda ay socon doonto muddo 15 cisho sabab la xiriira cudurka coronavirus talaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha ay dowladdu uga hortagayso cudurkan iyadoo dhammaan albaabada iskugu laabtay goobaha waxbarashada ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya markaana Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo khilaaf kala dhaxeeyay dowladda federaalka ayaa ka dhawaajiyay maanta in uu socdaal ku imaanayo Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa lagu wadaa in uu dhawaan soo gaaray magaalada Muqdisho ee Soomaaliya kadib casuumaad uu ka helay dowladda federaalka Soomaaliya Deni ayaa ku dhawaaqay go'aankan booqashada Muqdisho kadib kulanka golaha wasiirada Puntland ee maanta ka dhacay Garowe kaasoo sidoo kale looga hadlay qodobo kale oo ay ka mid tahay coronavirus booqashada Deni ee Muqdisho ayaa ku timid heshiis cusub oo dowladda Puntland la gashay wafdiga dowladda federaalka Soomaaliya ku sugan Garowe kaasoo ka qayb galay shirkiga wada tashiga Puntland madaxweynaha wuxuu sidoo kale sheegay inuu booqan doono magaalo madaxyada dowlad goboleedyada kale ee dalka Soomaaliya iyadoo safarkan uu noqon doono midkiisii ugu ballaarnaa tan iyo doorashadii sanadkii tagay Puntland ayaa waxa wali ku sugan wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad oo deegaanada ka soo jeeda
dhanka kale kulanka dani iyo wasiirada xukuumadda ayaa lagu go'aamiyey in wax ka bedel lagu sameeyo war murtiyeedkii ka soo baxay shirkiga wadatashiga Garowe kaasoo haatan dib loo saxay laba qodob oo ay ka biyadiidanayeen wasiirada heer federaal war murtiyeedka ayaa laga soo saaray qodobo sheegaya in Puntland ay qaadan karto go'aan kasta oo la gudboonaado haddii ay dowladda Soomaaliya aysan tixgelin go'aanada Puntland ka soo saartay khilaafka labada dhinac sidoo kale waxaa dib u sixid lagu sameeyay qodob sheegaya in Puntland ay shir ku casuuntay saamilada siyaasadda Soomaaliya taasina waxaa lagu bedelay in Puntland ay shir ku casuuntay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira liiska xildhibaanada koonfur galbeed ayaa lagu dhawaaqay guddiga madaxa bannaan ee soo xulista baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ayaa waxay ku dhawaaqeen liiska xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada koonfur galbeed oo ka kooban 95 mudane guddiga ayaa sheegay in wadatashi dheer oo ay la yeesheen odayaasha dhaqanka koonfur galbeed kadib ay soo xuleen liiska xildhibaanadan oo muddo badan ay ka taagneed isqabqabsi dheer oo ilaa ya haatan aan la xalin sidoo ogaatay warbaahinta inta badan xildhibaanada la soo xulay ayaa ah kuwa ay keensatay dowladda Soomaaliya waxaana kursiga xildhibaanimo loo diiday dhowr mas'uul oo horey xilal uga soo qaftay koonfur galbeed gaar ahaan kuwii la soo shaqeeyay madaxweynihii hore ee maamulka Shariif Xasan Sheekh Aadan guddiga xulayay xildhibaanada oo ahaa agaasimayaal iyo shakhsiyaad ka tirsan shaqaalaha dowladda ayaa shaqada u qabtay sidii ay dowladdu ku amartay oo ahaa inay xildhibaanada noqdaan kuwa daacad u ah dowladda oo ku shaqeynayo rabitaankeeda xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ayaa dhawaan waxay dooran doonaan guddoomiye ku-xigeenadiisa iyadoo la dhaarin doono markaana Muqdisho kaamirooyinkii ku xirnaa wadada Maka al-Mukarrama ayaa mar kale miilooyin lagu burburiyay faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxyo miino oo maanta aroortii laga maqlay qaybo ka mid ah Muqdisho qaraxyada oo ahaa kuwa isxigay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lala eegtay kaamirooyinka CCTV-da ee ay laamaha ammaanka ku xiran jidka wadada Maka al-Mukarrama ilaa 5 qarax ayaa la sheegay in lagu burburiyay qaar ka mid ah baalayaasha lagu xiray kaamirooyinkaasi kuwaas oo ku yaala inta u dhaxaysa isguushada dabka iyo sayidka oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya dadka Muqdisho gaar ahaan kuwa degan hareeraha jidka dheer ee Maka al-Mukarrama ayaa salaadii subax mar qura ku soo toosay dhawaq culus ee jugta qaraxyadaasi sidoo kale wararka ayaa inta ku darayeen qaraxyada kadib la maqlayay rasaas xoogan oo ay ridayeen ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa booliiska Soomaaliya laamaha amniga ee dowladda federaalka ma warin wax qasaar nafeed ah oo ka dhashay miinooyinkaasi marka laga reebo waxyeelada soo gaartay kaamirooyinka waa markii labaad oo qaraxyo lagu burburinayay kaamirooyinka ay dowladdu ku rakibtay wadada Maka al-Mukarrama ee Muqdisho kaamirooyinkan oo ah kuwa qorshoonay loo yaqaan CCTV-da ayaa laamaha amnigu waxay ugu talagaleen inay kula socdaan dhaqdhaqaaqa isguusyada qaar ee caasimadda si ay uga qayb noqdaan howlaha sugidda amniga oo ay wadaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed shirkadda Ethiopian Airlines ayaa qaaday tallaabo ka dhan ah madax bannaanida Soomaaliya shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ee ay leedahay dowladda Ethiopia ayaa shalay saacisay liiska wadamada ay joojisay duulimaadyadeeda iyo kuwa ay ku tagi doonto xilli uu adduunku wajahaya khatar ku aadan fayraska corona Ethiopian Airlines ayaa sheegtay in gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay dalal badan oo ay ka mid tahay Soomaaliya kadib markii ay dowladdu shaacisay inay joojisay dhammaan duulimaadyadii caalamiga ahaa marka laga reebo Somaliland maamulka shirkadda ayaa sheegay in duulimaadyadii ay ku tagi jirtay Somaliland ay sidoodii ahaan doonaan midaasi u muuqata tallaabo ay ku wiiqayso go'aanka dowladda federaalka oo iyadu gacanta ku hayso maamulka hawada dalka shirkadda ayaa go'aankeeda ku saleysay amar ka soo baxay xukuumadda Muuse Biixi oo uga reebtay dalalka Itoobiya wadamada ay joojisay duulimaadyada dowladda Soomaaliya ayaa hore mamnuucday dhammaan duulimaadyada caalamiga ah kuwaas oo ay ka mid yihiin duulimaadyada ka imaanaya dalka Itoobiya halka Somaliland oo iyadu ku dootay inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya inteeda kale aysan joojin duulimaadyada Itoobiya ma cadda go'aanka dowladda federaalka ay ka qaadan doonto duulimaadyada Ethiopian Airlines ay ku tagayso Somaliland maadaama ay jaminayso go'aanada looga hortagayo faafitaanka fayraska faraha ba'an ku haya dunida isla markaana ay ku wiiqayso jiritaankeeda khilaaf xoogan ayaa ka dhex bilowday wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya iyo wasiir dowlaha wasaaraddaasi khilaaf culus ayaa sidoo kale soo kala dhex galay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo wasiir dowlaha wasaaradda Cabdulqaadir Axmed Khayr oo warqado isburinaya iskugu jawaabay warqadan koobaad ayaa xilka looga qaaday agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda halka tan kale lagu buriyay warqadaas tilmaamaysa xilka qaadista warqada koobaad oo ku soo baxday xafiiska wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Cabdulqaadir Axmed Khayr ayaa ku socotay xisaabiyaha guud ee qaranka waxaana lagu gudbiyay saxiixa Shirwa Cabdullaahi Ibraahim oo warqadaasi
lagu magacaabo inuu noqdo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. warqadda kale ee ka soo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo lagu socodsiiyey guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka dowladda ayaa lagu buriyey magacaabista iyo saxiixa uu gudbiyey wasiir dowlaha wasaaradda Axmed Cabdulqaadir Khayr. sidoo kale wasiir Cawad ayaa dhammaan hay'adaha lagu socodsiiyey warqadii hore ku wargeliyey in uu buriyey magacaabistaas oo sida lagu xusay qoraalka ku soo baxday sifa sharci darro ah. saaxiibayaal waa naga intaa qodobadii aan nagala socoteen. haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu soo biirtay fadlan daawade subscribe channel-kan.